kulan casho sharaf ah oo ay jaaliyadda Puntland ku soo dhaweynaysay wasiiru dawlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada ee dawladda Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan ayaa lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. kulankan oo ahaa mid xog waraysi ah oo uu wasiirku kaga warbixinayay howlaha waxqabad ee ka socda Puntland. waxaa kulankan ka soo qayb galay bulshada dhinacyadeeda kala duwan oo gacmo furan ku soo dhaweeyay wasiirka. cali jaamac oo kamid ah odayaasha goobta ka hadlay ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin booqashada wasiirka oo horeyna uga tirsanaa jaaliyadda gobolka Ohio. sidoo kale waxaa ka hadlay goobta wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dawladda Puntland Cali Xoosh oo uga mahadceliyay wasiirka warbixinta uu uga sido dalkii, isagoo sheegay inay muhiim u tahay jaaliyadda gobolka Ohio inay ogaadaan isbedelada ka jira gudaha dalka. waxaa intaa kadib lagu soo dhaweeyay mikrofoonka wasiir Bashiir Cabdiraxmaan oo isaga markii horeba u soo gudbiyay jaaliyadda gobolka salaano uga sido madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo dhammaan maamulka dawladda Puntland. wuxuuna wasiirku khudbadiisa kaga hadlay tilaabooyinkii ay dawladda qaaday si loo sugo ammaanka magaalooyinka Puntland ee ka kooban tahay. sidoo kale wuxuu ka hadlay horumarka dawladda ka gaartay dhinacyada kala duwan sida waxbarashada, ganacsiga iyo xiriirka bulshada, isagoo sheegay sida shacabka iyo dawladda dadaal dheeraad ah u geliyeen isku xirka iyo horumarinta bulshada dhinac kasta. Soomaaliya civil servicekeedii iyo siyaasiyiintoodii iyo maanta intii experience-da lahayd Puntland ay wada fadhida. dad sida wadanka meelihiisa kale siyaasado fara badan ku kala qoqoban maaha. waa dad isku nawaaxiya, isku dada, muxuu ahaayey oo hawl fara badan iyo wax fara badan ay ka suurtoobi karto. waxaad ku garan kardhaan xaalad kastoo siyaasadeedoo timaada Puntland dagaal helaya waa ku yiri. wuxuu ugu yaraaday waxa weeye isimadoodii, waxgaradkoodii, experience-da dawladnimo dadkii lahaa, mutacalimiintoodii, ganacsi kobcay baa isku dhex jiro yaalla. Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas anagu waxaanu horseedanaa inaan lagu jirin sidii awal wax lagu maamuli jiray. waxaan rabnaa caruurtayada dhaxal inaan uga tagno. dhaxalkaan uga tegi karna dhaxalkaan uga tegi karna waxa weeye hanaan dawladnimo oo dhaba inaan gaarsiino. dhinaca kale wasiirku wuxuu jaaliyadda Puntland ee gobolka Ohio ku booriyay inay gacan ka geystaan mashruucyada horumarineed ee dalka ka jira, iyadoo uu sheegay in fursad weyn ay maanta haystaan taasoo dalkii wax loogu qaban karo. ugu dambeyntii wasiir Bashiir wuxuu uga mahadceliyay guddigii soo qaban qaabiyay casho sharafta iyo martidii ka soo qayb gashay intaba sida ay u soo dhaweeyeen. wuxuuna sheegay siduu ugu faraxsan yahay inuu maanta dib ugu soo laabtay dadkii uu yaqaanay iyo gobolkii uu horay uga tirsanaa. Basra Maxamed, Puntland TV, Ohio.